kulanti wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib doorasho natiijadeeda la sii og yahay oo ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waynu isla eegi doonaa Fahad waxa uu kursi ka soo helay Beledweyne xilli dadka reer Beledweyne ay wajahayaan caqabado badan oo markaasi qayb ay ka tahay in magaalada dhan bandow ay tahay qaar ka mid ah dadkaas waxay aasan la yihiin meydadka dadkii shalay qaraxa Fahad inta uusan imaan magaalada ka hor ka dhacay ayay aasan la yihiin waynu eegi doonaa caqabadaha dhowrka ah oo ay wajahayaan dadka reer Beledweyne ayaan daawadayaal isla eegi doonaa xilli gudaha magaalada lagu daadiyay ciidamo aad u fara badan isla markaasna ilaalo u ah la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidanka waxay diidan yihiin isku socodka dadka iyo gaadiidka xilli magaalada shalayto qarax culus uu ka dhacay waynu eegi doonaa daawadayaal qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo shir degdeg ah la qaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo gudiyada doorashooyinka haddaba maxay ka wada hadleen falanqeyn ayaynu ku sameyn doonaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maxaa kaga qorsheysan arinta 16 kursi ee talagada waynu isla eegi doonaa daawadayaal xilli Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diyaariyay qorshayaal ka dhan ah 16 kursi ee talagar bahari waynu isla falanqeyn doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya General Bixi waxa uu taageero weydiistay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli Garbahari uu ku wajahan yahay waynu eegi doonaa Farmaajo waxa uu qorsheynayaa in ciidamo dheeraad ah uu u diro Garbahari waxa wakiil kaga ah isla markaasna saaxiibo dhow ay yihiin General Bixi oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u dhow ciidamo ayuu ka daadguranaya gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Garbahari gada ayay ku wajahan yihiin ujeedka ciidanka waxay tahay 16 kursi ee taala halkaasi halka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo gudiyada doorashooyinkana maanta kulan degdeg ah ay ka yeesheen arinta gobolka Gado xiisada ayaa ah mid cirka isku sii shareerayso waynu eegi doonaa oo si wada jir ah ayaynu falanqeyn ugu sameyn doonaa daawadayaal qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirnaa ayaan daawan doonaa aan ku xasuusiyo daawade haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oo raahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinayno muuqaaladayna sii share garay oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid daawade ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay la taliyaha dhanka amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa doorasho la sii saadaalinayay maanta waxa uu ka soo helay guusheeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Fahad ayaa 5 sano kadib waxa la helay sidaas oo kale maanta muuqaaladiisa oo toos ah isaga oo ka hor hadlay dadkii doortay gudiga doorashooyinka iyo xubnihii xaadirka ku ahaa doorashada halkaas markay ka dhaceysay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir 5 sano kadib marka uu damcay in baarlamaanka 11aad uu qayb ka soo noqdo way u suurtagali weysay in mar kale uu isqariyo waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira dhanka shakhsiyadiisa iyo 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu sidaas oo kale ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Fahad ayaa doorashadan natiijadeeda la sii ogaa Beledweyne markaas kaga soo baxay maanta ciidamo aad u fara badan oo isugu jiro gorgor duufaan iyo haram cad ayaa ku sugan gudaha magaalada Beledweyne guud ahaan magaalada ayaa xilligaani ah mid bandow ah
dadka qaar waxa u suurtageli weysay in maanta ay soo aastaan meedadkii shalay dadkoodii ku geeriyooday qaraxa ka dhacay magaalada Beledweyne kaas oo ka dhacay inta Fahad uusan soo gaarin magaalada daqiiqada ka hor sidaas oo kale dadka qaar oo bukaana markaas qaraxaasi waxyeelo ay ka soo gaartay ayaa dadkooda waxa u suurtageli weysay in ay ku soo booqdaan isbitaaladii maadaama isku socodka dadka iyo gaadiidka la hakiyay inta doorashada ay soconaysay sidaas oo kale magaalada ayaa bandow sii ahaan doonto inta uu ku sugan yahay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka soo helay kursi halkaas natiijadiisa laga sii warhayay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Fahad ayaa helay codad gaaraya 70 cod halka musharaxii la tartamayay ee markaasi uu helay codad gaarayo 24 cod 3 cod ayaa xumaatay Fahad ayaa halkaasi khudbad ka jeediyay waxa uuna sheegay inuu dadkiisa ku matali doono kursiga loo doortay dhanka kale wuxuu xusay in doorashooyin badan ay markaasi uu qayb ka ahaa isla markaasna tani ay u noqonayso doorashadii ugu horeysay ee markaasi la doorto Fahad ayaa inta badan dadka waxay xiiseynayeen muuqaaladiisa maadaama 5 sano aynu ka soo gudubnay isla markaasna uu la shaqeynaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muuqaaladiisa aan la helin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidaas oo kala soo hadal qaaday in markaas uu rajeynayo in dib uu u soo laabto waxa uuna xusay sida markaan uu kaga soo mid noqday baarlamaanka inay ahaan doonto waxa uu sidaas oo kala sheegay in markaas Khadiijo Maxamed Diiriye uu kaga daysan doono sida mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad baarlamaanka qayb looga soo noqdo isaga oo xusay in ay kaga go'an tahay waxa uu sidaas oo kala cadeeyay in markaas ay muhiimad gaar ah u leedahay in uu qayb ka soo noqdo baarlamaanka 11aad Fahad Yaasiin ayaa 5 sano oo aynu ka soo gudubnay waxa uu qayb ka ahaa xubnaha ugu saameynta badan siyaasadda Soomaaliya Fahad ayaana noqday shaqsiga kaliya ee ugu saameynta badan 5 sano aynu ka soo gudubnay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya waxa uu ahaa shaqsiga sida gaarka ah u jaangoynaya siyaasadda waxa uu sidaas oo kale ka saameyn badnaa madaxweynaha dalka ka talinayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano aynu ka soo gudubnay waxa uu goonayay go'aamo ay adag tahay in cid waliba ay qaadato isaga oo loogu soo geed fariisanaya garta iyo sidaas oo kale arrimaha la xiriira siyaasadda markan wuxuu qayb ka noqday baarlamaanka 11aad mar kale ayaa la eegi doonaa qaabka iyo siyaasadda uu mar kale baarlamaanka ku soo galo isaga oo markaasi ah shaqsi dhanka siyaasadiisu ay aad isku badbadasho markana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulan degdeg ah ayuu la qaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidaas oo kale gudiyada doorashooyinka ra'iisul wasaare Roble ayaa xubnahani kala hadlay arrimaha la xiriira kuraasta jirta Garbaharre ee 16 gaarayso warar goordhow soo dhacay waxa ay sheegayaan in markaasi shir degdeg ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo hoggaanka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay yeesheen shirka oo ahaa mid dhanka aaladda Zoom-ka ama fogaan aragga ah ayaa waxa looga hadlayay xaaladda doorashada ka dhacaysa Garbaharre marka sidaas oo kale gobolka Gado iyo muranka hareeyay arrimaha la xiriira doorashooyinka xogo heeso aynu helnay waxay tilmaamayaan in kulanka uu markaasi socdo go'aanka laga soo saari doono qabashada doorashada Garbaharre ay la xiriirto dhawaan mas'uuliyiinta Jubbaland waxa ay sidaas oo kale ka hor yimaadeen doorasho ka dhacday isla markaasna doorashooyinka la xiriira in Garbaharre lagu qabto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland horay sidaas oo kale waxa uu xusay in marnaba aysan suurtagal ahayn in Garbaharre doorasho lagu qabto waxa uu sidaas oo kale sheegay in markaasi dhammaan kuraasta ay leedahay maamulka Jubbaland lagu qaban doono gudaha magaalada Kismaayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad ugu dhagan kuraasta taala gobolka Gado waxa uu sidaas oo kale qaba qorshe ku aadan sidii kuraastaas uu kaga faramaroojin lahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo siyaasad ahaan ay kala aragti duwan yihiin halka Axmed Madoobe xilligaani uu ku duulayo garba ay qayb ka yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo arrimaha doorashooyinka gacanta ku haya iyo gudiyada doorashooyinka
axmed madoobe marna ma qabo in gado markaas lagu doorto kuraasta 16 gaarayso waxa uu doonayaa in Kismaayo loo soo wareejiyo oo xubno si gaar ah isaga uu u wata ay ku soo baxaan halka filla Soomaaliya ay aad u quudareynayso 16 kursi oo markaasi marxalada dhowr ah dalka gelisay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa diidan in uu ka fuqo kuraasta gaaraysa 16 ah ee taala gado waxa uuna sidaas oo kala xusay in marnaba aysan suurtagal ahayn in kuraastaas uu uga tanaasulo madaxweynaha maamulka Jubbaland horay guddiga doorashooyinka go'aana ayay ka gaareen kuraasta muran ka badan dhalisay ee taala gada waxa ayna xuseen haddii kuraastaas murankeeda ay sii taagnaadaan in markaas doorashada dardargelinteeda hore loo sii wadi doono waxayna xuseen haddii la doorto gudoomiyaha golaha shacabka iyo tan madaxweynaha kadib in dib loogu soo laaban doono kuraasta muran ka badan dhalisay ee markaasi taala gado waxayna u dhaxaysaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labadan way ku dhageen in markaas kuraastaas mid waliba uu markaasi ka tanaasulo farmaajo xilligani waxa uu diyaariyo qorshe adag oo ku aadan kuraasta taala Garbaharey waxa uuna sida aynu xogta ku helayna diray General Maxamed Tahliil Biixi oo saaxiibo dhow oo siyaasadeed ay yihiin farmaajo waxa uu qorsheynayaa in ciidamo aad u fara badan uu halkaasi geeyo sida aynu xogta ku helnay taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa ku wajahan magaalada Garbaharey ee caasimadda gobolka Gado Biixi oo kamid ah saraakiisha aadka ugu dhow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan la sii ogeyn qorshaha safarkiisa ee markaasi Garbaharey balse warar aynu helnay waxa ay sheegayaan inuu doorashada iyo arrimaheeda u tagi doono halkaasi ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom ayaa la qorsheynayaa inay sugi doonaan amniga doorashada kuraasta taala Garbaharey inkastoo buuq uu ka jiro wali halkaasi taliya Biixi ayaa sidaas oo kale warar lagu kalsoon yahay waxa ay sheegayaan in markaasi uu u sharaxan yahay kursiga sumadiisu ay tahay hoob 110 waxaana 5 sano ee la soo dhaafay kursigaas ku fadhiyay xildhibaan Sagal Cabdirasaaq Biixi qoonda ahaan kursigaas waxa uu ahaa mid dumar isla markaasna ay ahayd in markaasi qoondada dumarka looga tanaasulo farmaajo oo dana gaar ah kale ayaa kursigaas u qorsheynaya Biixi filla Soomaaliya ayaa General Maxamed Tahliil Biixi ku taageeri doonto inuu helo kursiga golaha shacabka ee doogan doorashadiisu tahay Garbaharey waana haddii uu ku guuleysto in markaas uu ka qayb noqdo saraakiisha ciidanka baarlamaanka 11aad ka soo muuqan doona ayuu qayb ka noqon doonaa General Biixi ayaa farmaajo waxa uu sidaas oo kale la yahay saaxiibo dhow waxa uuna qayb ka ahaa sidii beledweyne looga soo kaxeeyay markaas in markaasi Muqdisho uu soo gaaro iyo sidaas oo kale arrimo kale oo dhowr ah oo la xiriira xuud ayuu ka soo kaxeeyay beledweyne farmaajo ayaa Biixi u kaashaday arrimo dhowr ah oo dhanka siyaasadda waxa uuna ka taageeray in markaasi xuud uu beledweyne markaas heshiis is-afgarad ah uu kaga soo wado Muqdishona uu keeno Biixi waxa uu qayb ka ahaa 5 sano ee la soo dhaafay xubnaha sida gaarka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la shaqeynayay siyaasadihiisa gaarka ah waxa uuna sameeyay qorshayaal dhowr ah oo markaasi uu ku taageerayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo General Biixi oo arrimaha ciidanka ku soo jiray ilaa iyo dawladii kacaanka ayaa dadka yaqaan waxay ku sheegaan mid markaasi dhanka wadaniyada aad ugu wanaagsanaa intii markaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay saaxiibo dhow siyaasadda aysan ku noqon waxa uu xilligani wajahayaa eedeymo dhowr ah oo la xiriira kasoo kaxayntii markaasi xuud ee beledweyne iyo shirqowlkii siyaasadeed ee markaas General Xuud uu kaga soo waday beledweyne Muqdishona uu ku keenay xuud ayaa saaxiibo dhow waxay ahaayeen Biixi marka uu Muqdisho keenay kadib waxa sidaas oo kale uu kaga tagay filla Soomaaliya xuud ayaa ilaa iyo haatan warkiisa la laayahay markii sidaas oo kale ugu dambeysay ee dhanka warbaahinta uu ka soo muuqday waxa uu diidanaa in ciidamo beledweyne loo kaxeeyo ciidankii uu ku ogaa iska daayay waxa beledweyne gaaray kuwa kale oo aad u fara badan isla markaasna tiradooda intaas ay ka badan tahay tan iyo xilligaasi waxa ka dambeeyay markii warbaahinta uu ka soo muuqday xuud waxa la weysan yahay hadalkiisa waxaana beledweyne ka soo kaxeeyay Biixi oo saaxiibo dhow ay ahaayeen xilligaana diyaar u ah in uu ka soo muuqdo baarlamaanka 11aad
waxa uuna sidaas oo kale uu doonayaa kursiga sumadiisu ay tahay hoob 110 in gada uu ka soo helo guud ahaan warkii oo aad kala socoteen barta wararka waa naga inta waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga halkan waa barta YouTube ee barta wararka daawaday mahadsanid